بسم الله الرحمن الرحيم عاوة وبش جانوري ay tahay 18 waxaan rabaa inaan marka hore halkan ka salaan uga diro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan gaasaskooda guutooyinkooda hurimahooda ururadooda saraakiishooda iyo saraakiil xigeenadooda dhammaan goobahooda iyo talisyadooda ay joogaan inaan salaan uga diro uguna hambaliyeeyo difaaca dalkooda ee ay ku foogan yihiin habeen iyo maalin waxaa nasiib darro ah in ciidanka xoogga dalka laga dhex raadiyo siyaasad sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka caddaynaynaa wararka kutirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah ee laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dibaddu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatee jirin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray waxaan halkan ku caddaynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga Itoobiya ee Tigrayna aan ugu caddaynayaa shacabka inay yihiin been iyo malaawaal waxaan rabaa inaan u mahad celino dowladaha saaxiibada ah ee walaalaha ah ee sida bilaa shuruud ah uga qayb qaata tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay ciidamada tababaranaya oo ah soo celinta karaamadii iyo sharafkii ciidamadu lahaayeen dadka diidan ee dacaayadaha ku furayaana waxa ay diidan yihiin in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay mar kale muujiso xuduudeeda ciidan iyo awoodda xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u sugaan amniga waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro siyaasiyiinta iyo suxufiyiinta ka ganacsanaya caloosha iyo qalbiga hooyada Soomaaliyeed ee wiilkeedu u dhaartay difaaca dalka tababarkana ugu maqan yahay waxaan rabaa inaan idhaahdo hooyooyinkeen hurdada ha ka kicinina siyaasadduna ma gasho kicinta hooyooyinka iyo propagandada iyo beenta kuwii hore la sheegay ayaa beenoobay maalin walba in been la sheegaa waxay hagardaamo ku tahay qalbiga hooyada Soomaaliyeed ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa inay ku kalsoonaadaan dowladooda isbarbar taagaan ciidankooda rajada soo celinta qarannimada iyo dowladnimaduna ay u baahan tahay ciidan adag oo suga amniga si aynu dowladnimadeenu u taabagasho waa mahadsantiin